1447 ee hijriyada. Kusoo dhawaada barnaamijka wararka maanta waan idinku soo gudbin doono wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan. Qodobadan maanta barnaamijka idinkugu haynaa waxaa ka mid ah wargeysyada ugu caansan Israel oo maanta afka furtay isla markaana ka hadlaya xaaladda adag ee go'doominta ah ee Israel ay ku sugan tahay. Guuldarrada dagaalka ciidamada oo ku dhibaataysan marinka Gaza iyo kala qaybsanaan ka taagan gudaheeda iyada oo laga digayo dagaal sokoye oo Israel gudaheeda ka qarxa. Haddaba maxay tahay fariinta qorayaasha warbixinada lagu qoray wargeysyada ay u jeediyeen askarta Israel? Warbixin iyo falanqayn arrimahani ku aadanayaan idinkugu haynaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falanqaynta. Wararka kalena waxaa ka mid ah xiisado colaadeed iyo dhiilo culus oo ka taagan gobolka Tigray ee Itoobiya. Dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay oo eedeymo culus u jeedisay Iiraan. Haddaba maxay ku aadan tahay eedeyntaasi? Faahfaahin ayaan idinkaga haynaa. Hogaamiyaha mucaaradka Israel oo ka digay dagaal sokeeye oo Israel gudaheeda ka qarxa. Gaza tiro hor leh oo dad ah oo u dhintay gaajaysiinta Israel halkaasi ay ka wado iyada oo tirada dadka gaajada u dhintayna ay kor u dhaafeen tiradooda 180 ruux. Israel oo rajeynaysa in gelitaanka gargaarka Gaza ay siiso fursad ay sidoo kale sharciyad ay halkaasi kaga fuliso weeraro military oo cusub. Trump oo Israel u jeediyay dalab cusub oo la xiriira marinka Gaza iyo Hamas oo Netanyahu ku dhaleecaysay inuu doonayo inuu gaajo u dilo dadka la haystayaasha ah ee Gaza ku sugan. Dhammaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ay soo kordha ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka maanta. Ku soo dhawow xarunta Al-Hidayah Academy aan step ahead tushin. Haddii horay iyo hadeerba carruur alle kuu hibeeyo tacliin waa lama huraan aqoonta hidaaya kaalay hibada xifdiga iyo quraanka hal haysta rabiyada fiican aqoontoon kala haraynba ileen mahuraanba weeye u kaalay hidaaya kaaba. Xarunta Al-Hidayah Academy aan step ahead tushin ee magaalada London waxay bixisaa adeeg waxbarasho dhammaystiran oo loogu talagalay carruurta dhalinyarada iyo dadka waaweynba xifdinta quraanka iyo dhisidda akhlaaqda suuban iyo xiisadaha maadiga ahba sida tushinka ilmaha iyo koorsooyin Ingiriisha oo dadka waaweyna waa ku diyaar. haddaba fasalladu way xadidan yihiin. xaruntu waxay ku taallaa xaafadda Harleston ee waqooyiga galbeed ee magaalada London. kala xiriir telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka Khaliijka, Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho? Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyay badqabka caafimaadka xoolaha. Hada dalbo hilib geel, lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir. waanad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka. maanta waxaynu ku bilaabaynaa xagga Itoobiya gaar ahaan wararka la xiriira gobolka Tigray halkaasi oo maamulka ku meel gaarka ah ee gobolkaasi uu ku eedeeyay ururka Simred in uu weerar hubeysan ku qaaday unug amni oo ka howlgala deegaanka Malzad oo ku yaala koonfur bari ee gobolkaasi. weerarkaasina waxa uu sababay dhimashada hal xubin oo ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee maamulka ku meel gaarka ah. bayaan ka soo baxay xafiiska nabadda iyo ammaanka ee maamulka ayaa lagu sheegay in weerarka uu dhacay 30kii bishii July isla markaana uu ahaa mid lagu fuliyay magaca dhaqdhaqaaq siyaasadeed balse ay ka dambeeyeen xubno ka tirsanaa xisbiga Simred. waxaana lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa tallaabo argagixiso isla markaana laguna maalgeliyay ajendayaal shisheeye. maamulka ayaa ka digay in ficilada noocani oo kale ah ee mar kala dhacaan isagoo uu ku tilmaamay dhibaato iyo ku xadgudub siyaasadeed oo military ayna keeni karaan in la qaado tallaabooyin isdifaacid ah haddii wax laga qaban waayo. si kastaba ha ahaatee Kadajureda oo ah madaxweynihii hore ee Tigray iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbigan Simred ayaa si cad u beeniyay eedeymaha loo jeediyay isagoo qoraal uu ku daabacay baraha bulshada gaar ahaan barta X ee hore loo oran jiray Twitterka ku sheegay in maamulka hadda jira uu bartilmaameedsanayo mucaaradka isla markaana uu isku dayayo inuu aamusiyo codadka siyaasadeed ee ka aragtida duwan iyaga. Reda waxa uu sheegay in xisbigiisu uu yahay mid cusub ayna haysan hadda siyaasad iyo sidoo kale awood ciidan oo ay ku carqaladeyn karaan ee gobolka.
tan iyo bartamihii sanadkii 2024 xiisada Tigray ayaa mar kale cirka isku shareertay iyada oo ururada bulshada rayidka ahna ay bishii Juun ee sanadkii 2024 bilaabeen olole loogu magac daray nabad iyo wada hadal si looga hortago in gobolka dib ugu laabto xaaladii colaadeed ee hore loo soo maray. Allahan ayaa digniin cad ka soo saaray hadallada kacsan ee siyaasadeed iyo dareenka colaadeed ee u dhaxeeya maamulka iyo sidoo kale xisbiga Zimred iyagoo ugu baaqay in dhinacyadu ay ka fogaadaan wax waliba oo sababi kara in dib loogu laabto xaalad dagaal isla markaana dagaal uu mar kale ka qarxo halkaasi. waa tahay markana aynu dhanka Yemen u weecanno madaxweynaha golaha hogaaminta ee Yemen ee dowladda caalamku aqoonsan tahay ee Rashad Al-Alimi ayaa ku eedeeyay dowladda Iran inay weli maalgelinayso maleeshiyad hubeysan si ay u carqaladeyso xasiloonida gobolka iyo tan caalamkaba isla markaana ay sii dheereynayso dhibaatada bini'aadantinimo ee Yemen ka jirta. Al-Alimi waxa uu sheegay in Iran ay si toos ah u taageerto kooxo ku lug leh ka ganacsiga hubka iyo daroogada iyo inay halis gelinayso marinada muhiimka ah ee maraakiibta caalamiga ah ee adeegsadaan sida uu hadalka u dhigay. wakaalada wararka ee Yemen ee rasmiga ah ayaa sheegtay in Al-Alimi uu axadii magaalada Riyadh kula kulmay qasimaha safiirka Mareykanka ee Yemen Jonathan Page si ay uga wada hadlaan xaaladda dalka, taageerada caalamiga ah ee loo baahan yahay dib u habeynta dowladda iyo horumarinta adeegyada. waxa uu sidoo kale la wadaagay xog ku saabsan guulaha dhawaan laga gaaray la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada sida soo qabashada unugyo argagixiso oo xiriir dhow la leh Xuutiyiinta iyo ururo kale iyo qabashada hub qalab ciidan iyo sidoo kale daroogo. Al-Alimi waxa uu xusay in ay socdaan dadaalo wada jir ah oo lala kaashanayo bankiga dhexe si loo xakameeyo sicir bararka iyo hoos u dhigida miisaaniyadda qasaartay. waxa uga mahad celiyay Mareykanka taageeradiisa sharciyada iyo wax ka qabadka bini'aadantinimo gaar ahaan la dagaalanka argagixisada, ilaalinta xeebaha iyo taageerada nidaamka kormeerka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale hirgelinta mamnuucida hubka Iran ee loo soo tahriibiyo Xuutiyiinta. Watahay daawadayaal waxay nagu soo foolay wararkii ugu dambeeyay ee Gaza, xubintii falanqaynta iyo waliba qodobo kale, balse markaan aynu eegno jawiga cimilada qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaalida. aynu ku bilaabnay ee magaalada Muqdisho heerkulka cimiladeedu waa 27 digrii centigrade, jawigeedu waa qorrax iyo daruuro wada jira, xawaaraha dabayshuna waa 31 kilomitir saacadii. magaalada Jigjiga heerkulka cimiladeedu waa 22 digrii centigrade, jawigeedu waa daruuro, xawaaraha dabayshuna waa 23 kilomitir saacadii. magaalada Hargeysa heerkulka cimiladeedu waa 27 digrii centigrade, jawigeedu waa qorrax iyo daruuro wada jira, xawaaraha dabayshuna waa 34 kilomitir saacadii. magaalada Djibouti heerkulka cimiladeedu waa 38 digrii centigrade, jawigeedu waa qorrax iyo daruuro wada jira, xawaaraha dabayshuna waa 24 kilomitir saacadii. magaalada Gaarisa heerkulka cimiladeedu waa 28 digrii centigrade, jawigeedu qayb ahaan waa mid qorrax leh, xawaaraha dabayshuna waa 56 kilomitir saacadii. magaalada Baydhabo heerkulka cimiladeedu waa 27 digrii centigrade, jawigeedu waa daruuro, xawaaraha dabayshuna waa 25 kilomitir saacadii. ugu dambeyntiina magaalada Boosaaso heerkulka cimiladeedu waa 38 digrii centigrade, jawigeedu waa qorrax daran, xawaaraha dabayshuna waa 50 kilomitir saacadii. watahay intaan u gudbin qodobada kale ee barnaamijka aynu markan ku hakano qadar xayisiina. Simodi oo ah suuqa ugu weyn ee dahabka ee bariga Afrika waxa uu macaamiishiisa ugu talagalay fursad cajiib ah oo mar la arag ah. haddii aad dahab ka soo iibsato Simodi iyo haddii aad iska iibinayso labadaba, Simodi waxay ku siinaysaa fursad qaali ah oo aad ku guulaysan karto dahab kale, waana fursad soconaysa bishan iyo bisha soo socota. cajiib! Simodi ka iibso dahab ama iska iibi oo hel dahab kale oo aad ku guulaysanayso. fursadan guulaystayaashu waxay noqon doonaan 6 qof ee ugu horeeya, waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa. faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.
soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka wararka maanta oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha bulshada ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo weliba Telegram-ka. warbixino qoraal ah, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan oo aad ka dheehan kartaan barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnoo HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. waa tahay haatana aynu wararkii ugu dambeeyay ee Gaza qoraansanno halkaasi oo Israa'iil ay si joogto ah uga wado duqeymaha gaajaysiinta iyo weliba sidoo kale beegsiga dadka shacabka ah ee reer Gaza gaar ahaan kuwa cunada u raadsanaya goobaha gargaarka. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa maanta sheegtay in 5 isbitaal ee Gaza ku yaala ay diiwaan geliyeen ilaa 5 dhimasho ah oo ka dhalatay gaajo iyo sidoo kale nafaqa darro baahsan 24 saac ee la soo dhaafay. wasaaraddu waxay kaloo sheegtay in dhimashadan cusub ay tirada guud ee dadka u dhintay gaajada ay ka dhigayso cadadkooda ilaa 180 qof kuwaasi oo ay ku jiraan 93 carruur ah. dhanka kale haddii aynu jaleecno wargeyska iyo dacwada xiranood ee Israa'iil ka soo baxaya soo xigtay ilaa amni kuwaasi oo sheegay in xukuumadda Israa'iil ay rajeynayso in gelitaanka gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza uu keenayo sharciyada military si ay uga fuliyaan halkaasi howlgalo military oo ka dhan ah magaalada Gaza iyo sidoo kale aaga xeebeed ee Mawaazi lagu magacaabo oo u dhaxeeya Daar al-Balax oo bartamaha Gaza ah ilaa Rafah oo iyana koonfurta marinka Gaza ah. isla wararka Gaza aynu ku sii soconay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku andacooday in uu doonayo in Israa'iil ay siiso cunto dadka Falastiiniyiinta ah ee ku go'doonsan Gaza isagoo oo hoosta ka xariiqay in uusan rabin sida uu hadalka u dhigay in dadkaasi ay u dhintaan gaajo ama nafaqa darro. Trump oo ka hadlayay gobolka Pennsylvania ee dalkaasi Mareykanka ayaa ka hadlay arrimahaasi isagoo oo yiri waxaan rabnaa in Israa'iil ay cunto siiso Falastiiniyiinta Gaza. Trump oo hadalkiisa si aan gabasho lahayn ugu taageeray xasuuqa Israa'iil ee Gaza ay ka wado muddada 22 bilood ah ayaa waxa uu intaasi ku daray Mareykanku waxa uu door weyn ku leeyahay bixinta cuntada dadka reer Gaza la siiyo isagoo sidoo kale ku dooday in Mareykanku yahay wadanka kaliya ee sida dhabta ah u bixiya lacagta iyo gargaarka cunto la gaarsiinayo dadka halkaasi. waxa uu horey u sheegay toddobaadkii hore in Mareykanka uu u diray Gaza cunto ku kacaysa adduun lacageed dhan 60 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Washington Post waxay xaddii daabacday in gargaarka dhabta ah ee Mareykanku uu bixiyay uu ahaa kaliya 3 milyan taasi oo beeninaysa sheegashada Trump ah in 60 bilyan adduun lacageed ah ku qarash gariyay si cunto loo siiyo dadka reer Gaza. waa tahay Hamas dhankeeda waxay ka hadashay talaabadan gaajaysiinta ah Israa'iil ee Gaza dadka Gaza ay kula kacayso iyada oo dhaleecayn xoogan u jeedisay ra'iisul wasaare Netanyahu isla markaana sheegtay in uu doonayo in dadka la haystayaasha ah ee sida Israa'iiliyiinta ah ay u dhintaan gaajaysiinta. xubin sare oo ka tirsan Hamas laguna magacaabay Izzad al-Rishqi ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu dhameeyo arinta la haystayaasha Israa'iil sidoo kale Gaza ku sugan isagoo oo gaajo u dilaya kadib markii uu ku guuldareystay sida uu hadalka u dhigay in uu helo maleyntooda ama uu ku dilo duqeymo. qoraal uu soo dhigay barta Telegram-ka al-Rishqi waxa uu Netanyahu oo ay baadigoobayso maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC si buuxda ugu eedeeyay mas'uuliyadda dagaalka gaajaysiinta ah iyo dabargoynta isugu jira ee ka dhanka ah dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta ah taasi oo xitaa saameysay sida uu sheegay maxaabiista Israa'iil ee gacanta ugu jira Hamas. al-Rishqi waxa uu sheegay in dagaalyahanada Falastiiniyiinta ah ay ula dhaqmayaan maxaabiistooda si waafaqsan diinta iyo sidoo kale akhlaaqda bini'aadantinimo isagoo yiri waxaan cunno iyo cabidba wadaagnaa maxaabiista sida shacabka intiisa kale. waxa uu intaasi ku daray in caalamku horey uu arkay in maxaabiista Israa'iil laga sii daayay Hamas ay baxaan iyaga oo jirkooda iyo sidoo kale maskaxdooda ay nabad qabto balse maanta ay ku jiraan xaalad gaajo iyo sidoo kale caatoobid ah sida iska caabinta iyo shacabka Gaza ka muuqataba. al-Rishqi waxa uu sheegay in sawirada gaajada ee caruurta waayeelka iyo haweenka Gaza xitaa ka hor askariga Afidar David oo ay kooxda soo bandhigtay ay yihiin jawaabta aan la inkiri karin ee kuwa dafira ka jiritaanka ee macluusha Gaza. maalmihii u dambeeyay iska caabinta Falastiiniyiintu waxay baahiyeen muuqaalo muujinaya qayb ka mid ah la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah ee Gaza lagu hayo
oo lagu kala magacaabo Afidar David iyo sidoo kale Ron Baris Levinsky kuwaasi oo aad u caatoobay taasi oo muujinaysa saameynta siyaasadda gaajada ee Tel Aviv ay u isticmaalayso halkaasi. wararka xagga Israel hadii aynu qoraansano hogaamiyaha mucaaradka Israel Yair Lapid ayaa si kulul u cambaareeyay hogaanka siyaasadeed ee xukuumadda dalkiisa isagoo ku eedeeyay xukuumadda Netanyahu inay si ulakac ah u sii dheereynayso dagaalka Gaza si ay u dhaqan geliso fikrado xagjir ah oo ay iyadu wadato isagoo oo la hadlayay idaacadda ciidanka Israel Lapid waxa uu sheegay waxaan xaq u lahayn dagaalkan markii uu bilowday balse hadda waxa uu noqday mid aan wax faa'iido ah noo lahayn Lapid waxa uu ku eedeeyay xulafada Netanyahu gaar ahaan wasiiradiisa xagjirka ah ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir inay rabaan in Gaza loo haysto si joogto ah taasi oo ku qasbi doonta canshuur bixiyaasha Israel in ay bixiyaan adeegyada Gaza sida waxbarashada carruurta Falastiiniyiinta arrintan uu ku tilmaamay Lapid mid aan la qaadan karin siyaasiyan iyo sidoo kale dhaqaale ahaan midna Yair Lapid oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri hogaanka siyaasadeed ee hadda jira waxa uu noo horseeday dagaal aan dhammaad lahayn arrintan ayaa la sheegay inay tahay mid muujinaysa khilaafka siyaasadeed iyo kala aragti duwanaanta sii xoogaysanaysa ee u dhaxaysa xukuumadda Israel iyo mucaaradkeeda iyadoo aan weli jirin wax qorshe ah oo cad oo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza muddada ka aloolsan waa tahay daawadayaal haddana waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysay ee barnaamijka oo ah xubinta falanqaynta taasi oo aan ka soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga kuwa istaraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo weliba sirdoonka sidoo kale waxaan ka marnay xubintan oo ku soo qaadanaa kuna qaada dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxa soo baxaya xogo sheegaya in ujeedooyinkii dagaalka ee Gaza ay ka lahayd Israel ay noqdeen kuwo suulay oo aan la gaari karin yoolalkii iyada oo la ballanqaadyo maran ee lagu wajahay hab maamulka dagaalka wargeysyada Israel Today iyo sidoo kale Haaretz oo labadaba Israel ka soo baxa ayaa isku raaceen waxa hadda ka socda marinka Gaza ay yihiin dagaal aan dhammaad lahayn oo aan lahayn yool cad marka laga reebo ilaalinta isbahaysiga xukuumadda iyo rumaynta riyooyinka dagaalyahanada Yahuudda ah ee xagjirka ah oo doonaya in ay tirtiraan Gaza ayna barakiciyaan dadkeeda qoraal uu ku daabacay Yoav Lemor wargeyska Israel Today ayuu ku sheegay in raadinta guul buuxda ee dagaalka Gaza ka dhigtay mid aan lahayn dhammaad isla markaana ballanqaadyada maran ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wasiiradiisu ay horseedeen go'doon caalami ah iyo dhaawac weyn oo soo gaaray waxa ay ku sheegeen sumcadda Israel qoraalku waxa uu ku baaqayaa in la bilaabo wada hadallo oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin joojinta dagaalka Gaza siideynta la haystayaasha iyo dhisidda maamul kale oo Gaza ka hana qaada Israel waxay lumisay jihada dagaalka sida darteedna waxa fursad ah uma hayso inay gaarto yoolalkii ay sheeganaysay ka hor dagaalka sida soo celinta la haystayaasha iyo guulka gaaridda Xamaas sabab la xiriira muuqlaanta siyaasadeed iyo in Netanyahu uu hoos u jaleecayo cadaadiska uga imaanaya garabka xagjirka ah ee xukuumaddiisa kuwaasi oo ku qasbaya yool aan qeexnayn oo la yiraahdo guul buuxda labadan eray ee israacay ee guul buuxda ayaa dagaalka u bedelay mid aan lahayn waqti dhammaad ah markasta oo Netanyahu uu sheegto in guul dhammaystiran la gaaray isagoo oo leh waxaan si buuxda u gaaraynaa bil ama hal tallaabo ayay naga xigtaa markaasi ayayba arrintu faraha ka sii baxaysaa oo sii fogaanaysa ballanqaadyada wasiiradiisuna waa sidaasi oo kale oo oofin ma lahan isagoo tusaale u soo qaatay wasiirka difaaca Israel Katz oo ku hanjabay in waa sida uu hadalka u dhigay albaabada cadaabta la furi doono haddii la haystayaasha la soo deyn waayo halka wasiirka kale ee maaliyadda ee Israel Bezalel Smotrich uu isna ku dhaartay in uu iska casilayo xukuumadda haddii gargaar bini'aadantinimo la geliyo Gaza balse weli la haystayaasha waa la haystaa gargaarkuna waa u gaaray Gaza taasi waxay muujinaysaa in ballanqaadyada siyaasadeed ee Israel ay yihiin kuwa aan la oofin mar walba guulo military iyo fashil diblomaasiyadeed warbixinta wargeysyadu ay qoreen waxay ku andacoodeen in military ahaan Xamaas ay hoos u dhac uu soo gaaray gaar ahaan kaabayaasha Gaza inta badan dadkuna waa sabool xaaladihii bini'aadantinimo ee hadda taagnaana waa mid u dhow kuwa burbur ah oo buuxa
hase yeeshee cadaadiska sii kordhaya ee kaga imaanaya beesha caalamka gaar ahaana Yurub iyo dowladaha Carabta oo xulafo la ah Israa'iil ayaa ku qasbay in xukuumadda Netanyahu ay dib uga gurato mowqifkeedii hore balse tanaasulkeedu waa mid aad u yar oo soo daahay taasi oo sabab u ah ama sababtay sheekada caalamka ee Israa'iil inay tahay dambiilaha ugu weyn ee dunida inay noqoto mid sal adag yeelata xitaa dhalinyarada xisbiga jamhuuriga ah ee Mareykanka ayaa codeynta fareen codeyn ah waxay ku muujiyeen taageero badan oo ay u hayaan dadka Falastiiniyiinta ah Ra'iisul Wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Barak ayaa mar hore uga digay Israa'iil inay wajihi doonto duufaan diblomaasiyadeed waana taas waxa hadda dhacaya isla markaana haddii aan la joojin Israa'iil waxa ay wajihi doontaa burbur isugu jira dhanka siyaasadda bulshada iyo xagga amniga warbixintu waxay sheegaysaa in wadada hadda Israa'iil ay ku socoto ay tahay mid la bedeli karo isla markaana la geli karo wada hadallo lagu joojinayo dagaalka Gaza oo lagu soo deynayo la haystayaasha laguna dhisayo maamul kale oo Gaza ay yeelato oo ay wada maamulaan dowladaha reer galbeedka iyo kuwa Carabta tallaabadaasi oo noqon karta guul dhab ah oo ka dhan ah Xamaas sida hadalka loo dhigay tallaabooyinkani waxay dhalin karaan faa'iidooyin degdeg ah oo ku aadan joojinta dagaalka yareynta dagaalka ciidanka Israa'iil haysta maxaabiista oo dib guryahooda loogu soo celiyo taasi oo suurtagelin karta in Israa'iil ay u bilaabato bog cusub oo ay kaga boogsato khilaafaadka gudaha ee sii qotada dheeraaday balse waxay u baahan tahay in qiimo lagu bixiyo arrintaasi sida dhicitaanka xukuumadda Netanyahu ha noqon askari lambarka 900 wargeyska Haaretz ayaa qoraal lagu magacaabo Yuri Misgaf waxa uu maqaalka ku qoray uu ku muujiyay sida warqad uu u dirayo askari dagaalka kaga jira jiidaha hore ee Gaza isagoo uga digaya in laga yaabo in uu noqdo askariga 900 ee ku dhinta halkaasi waxa uu xusuusinayaa askarta in dagaalkani uu hadda uusan ahayn difaac wax qiimo ah leh balse uu yahay midka kaliya ee noloshooda lagu halaagayo si xambaarsan ujeedada siyaasadda iyo isla weyni maqaalku waxa uu ku doodayaa in dagaalkan hadafkiisa uu yahay in la ilaaliyo isbahaysiga xukuumadda laguna qanciyo rumaynta kuwa uu ugu yeeray Yahuudda waalan oo raba in Gaza gabi ahaanba la tirtiro dadkeeda la barakiciyo haddii aadan ka mid ahayn kuwaasi taasi ma ahayn sababta aad askari u noqotay ayuu qoraagu ku leeyahay askariga mana aadan u gelin si aad uga qayb qaadato dambiyada dagaal ee xukuumadda iyo ciidankeenu ay wadaan Misgaf waxa uu tusaale u soo qaatay wiilka uu dhalay Bezalel Smotrich oo 17 bishii Oktoobar ku jira dugsi diimeed guursaday carruur dhalay dhul qiimo jaban helay isla markaana ka badbaaday adeegga military adigana waxaad xaq u leedahay in aad wax barato guursato oo aad carruur dhashid waxa uu intaasi sii raaciyay waxaad ogtahay inaad daalan tahay cuncun daran ay kugu hayso carrada iyo cayayaanka gaajo ayaad dareemaysaa qoysna waad u baahan tahay indhahaaga ayaad ku aragtay inaysan jirin argagixiso aad la dagaalanto mararka qaar ayay ka soo baxaan godadkooda si ay adiga kuu dilaan waad ogtahay in intii askari ee ku dhimatay burburka dhismayaasha qaraxyada hubka iyo shilalka aan loo baahnayn qoraagan ayaa ugu dambeyntii xusuusiyay askarta in wasiirada ka hadlaya dagaalka ay ku raaxaysanayaan noloshooda oo ay isaga jiraan jawi socdaal safarro ah hoteelo iska degan yihiin nolol raaxo lehna ay ku jiraan isagoo hadalkiisa ku daray adigana waxaad mudan tahay fasax safar Yurub iyo Aasiya aad ku tagto inaad wax cunto cabto oo aad noolaato maxaad ugu dhimanaysaa iyaga dartood waa da'yar tahay noloshaada oo dhan waa ay ku hortaala ha noqon askariga 900 ee gurigaaga ku laabo waa tahay daawadayaal aynu intaasi ku dhaafno xubintii falanqaynta iyo qodobadii wararka ee ka horeeyay gudahaan waxaan intaasi ku eeg barnaamijkii wararka maanta oo si toos ah uga daawanaysaan HBN Online TV si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamij mid ka lacayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo المصباح إسلاميك أونلاين moogtahay adduunyada meel kastood ku sugan tahay muraadkii waxbarashada axaadiista mudan iyo marisyada qur-aanka iyo diintii macaanayd muuqaal in lagu dhigo oo maqal ku dheer yahay almisbaaxna laga helo adigoon mashaqo iyo meermeerid kala gelin marra waaxid istaagoo moobeelka qaado almisbaax la xiriira almisbaax islaamic online waxaad ugu tegaysaan barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ah oo hab online ah lagu baranayo dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub oo isugu jirta carruur iyo dad waaweynba maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah xifdiga qur-aanka kariimka
barashada akhriska iyo qoraalka higaada carabiga axaadiista iyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam barashada salaada iyo ducooyinka luqadda carabiga iyo maadooyin kale dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho ama shahaado ka turjumaysa aqoonta aad baratay wixii faahfaahin oo intaa dheer kala xiriir whatsappka shaashada kaaga muuqda